maantay 10 July 2021 abaar 10 subaxnimo ayaa qoliyaha argagixisada ahaa ee hore u caadaystay daadinta dhiigga iyo nafta maalka ummadda Soomaaliyeed waxay qarax ay ka soo xireen baabuur ku soo rareen la beegteen taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir oo marayay wadada ka leexatay isgoyska Banaadir ee aad istaal Madiino ilaa Villa Baydhabo xaggeeda meeshaan hadda taaganahay ujeedka argagixisadu wuxuu ahaa inay baneystaan nafta taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta kale Soomaaliyeed ee goobta ku sugnaa ama meesha marayay qaraxa argagixisadu ay la beegsatay Ilaahay xamdigiis taliyuhu ka badbaaday walow jira qasaare kale oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ama marayay wadada qasaare wuxuu ku sugan yahay qasaaraha ayaa soo gaaray dadka shacabka ah goobta ku sugnaa qasaaraha ayaa isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu reebay qaraxaas argagixisadu ay soo maleegeen walow taliyihii ay ula dan lahaayeen qaraxa uusan wax dhibaato ah gaarin Ilaahay xamdigiisna uu nabad qabo laakiin uu jiro qasaare dad shacab soo gaaray inta aan ognahay waxa jira qasaaraha oo ku sugan ilaa 4 dhimasho ah iyo dhaawaca ilaa 9 qof oo ah u badan dadkii goobta marayay mana jiraan wax qasaare inta ka badan oo qaraxu uu reebay argagixisada waxaan leenahay hore ayaad u bandhaysateen naftii maalka iyo dhiigga ummadda Soomaaliyeed mar aan Ilaahay haduu yiraahdo cadaaladda ayaa la horkeeni doona waa la kula xisaabtami doona mana qalqal gelin doonto mana hor istaagi karto shaqooyinka ummadda loo hayay in argagixisadu ay qof iyo laba nagamada bartilmaameedsadaan ma hor istaagi doonto shaqooyinka ummadda loo hayo iyo xasilinta amniga geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan caasimadda iyo nawaaxigeeda horena ma ahan markii koowaad ay saan oo kala dad maaraysadaan laakiin argagixisadu wax inta ka badan ay sameyn karaan ma jiro inay hadba qof gaadaan moogii marka waxaan u sheegaynaa in aysan qaraxyada ay soo maleegaan iyo shirqoolada ay maleegaan aysan hor istaagi doonin hor istaagina karin hawlaha ummadda loo hayo adeega ummadda loo hayo waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.